wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Maryan Maxamed Xuseen ayaa maanta si rasmi ah u daahfurtay ololaha tobanaad ee daaweynta xanuunka isku furanka haweenka oo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 250 bukaan oo ka kala yimid gobolada dalka. Qalliinka oo ay isbitaal Daynile ka fulin doonaan dhaqaatiir u dhashay dalalka Jordan, Falastiin iyo Nigeria ayaa munaasabada lagu daahfurayay oo ka dhacday xarunta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka, madaxda hay'adda BAG, dhaqaatiir iyo qaar ka mid ah bahda caafimaadka. wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Maryan Maxamed Xuseen oo ololaha furtay ayaa dhaqaatiirta qaliimada fulinaysa uga mahadcelisay garab istaagooda waxayna xustay inay si hufan ula shaqeyn doonaan. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dadkii soo qabanqaabiyay, dadkii soo diyaariyay. ugu horeyso markaan ka hadlayno fistula waxaa laga shaqeeyaa waqti dheer, waana ku faraxsanahay hay'adda International BAG oo muxuu ahaa markasta ku howlan inay horumariso dhaawacyada ka soo gaara dhalmada haweenka in dib loo dayactiro. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. waxaan leenahay hore u sii wada, shaqo fiican ayaa wadanka u haysiin, waana wax loo baahan yahay sababtoo ah gabdhaha markay isku furmaan ama laga keeno meelaha fogfog ayaa waxaa dhacdo in muxuu ahaa la furo oo laga tago oo dhibaato badan ka soo gaarto. laakiin markii la dayactiro oo sideeda lagu soo celsho qofkina niyad ahaan iyo moral ahaan wuu dhismaa. marka aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa shaqada fiican haysiin oo waqtiga dheer aad u haysiin. Professor Jamaal oo hogaaminaya dhaqaatiirta fulinaysa qaliimada ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay. We look at Somalia, as you see, they're from Nigeria, they're from Asia, from Palestine, Jordan, and UK. So they share your sufferings because they themselves have lots of troubles also, but different types of troubles. So we really want to extend our hands to our brothers, our colleagues in Somalia, and this has been well established through our teams everywhere. agaasimaha hay'adda BAG ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Maxamed ayaa tilmaamay in qaliinka ay ka faa'iideysan doonaan bukaanno muddo la dhibaatoonaya xanuunka isku furanka. maanta waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno teamkeena oo annaga muddada aan sugeynay dhaqaatiirta muddada aan sugeynay oo ka kala imaanayay wadamo kala duwan, kuwaas oo u imaanayeen inay wadanka ku soo kordhiyaan program oo maanta Soomaaliya oo dhan aad iyo aad ay ugu baahnayeen. run ahaantii oo ah general surgery iyo program hore u socday oo fistula ahaayo hay'adda physicians across continents oo lagu yaqaanay mar waliba inay fistula wadanka ay ka sameyso. run ahaantii anagoo dhan jaanis ay noo tahay. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.